Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Laba hab oo naftaada ku dhiirigelin kartid. Haddaba waxaa jira 3 qodob oo ka guuxaya maankaaga. Haddaba maxay yihiin 3dan qodob? 1. Waa maxay dhiirigelintu? 2. Sidee ku heli karaa dhiirigelin? 3. Sidee naftayda u dhiirigelin karaa? Haddaba mowduuca dhiirigelintu waxa ugu horeeya ay tahay inuu qofku sameeyo markuu doonayo inuu guuleysto. Waxaan si kooban u qeexaynaa qodobadii aan soo sheegay. 1. Waa maxay dhiirigelintu? Dhiirigelintu waa halka ama shidaalka kaliyaata ee kugu dhaqaajin kara hawl aad qabanayso. Haddii aadan dhiiranayn, awood uma lihid inaad si niyadsan oo xamaasasan u qabato hawlahaaga aad ku guda jirto ama aad rabto inaad qabato. Dhiirigelintu waa shidaalka qof kasta u saamaxaya inuu ku gaadho hankiisa kuna bislaysto minihiisa guusha. Dhiirigelintu waa shayga ugu muhiimsan ee qofka u horseeda inuu ka dhabeeyo hadafkiisa, waayo qof kasta waxa dabada ka riixaya waa dhiiranaan uu ku qabto waxa uu qabanayo. 2. Sidee ku heli karaa dhiirigelin? Waxaad heli kartaa inay ku dhiirigeliyaan dadku jecel sida waalidkaaga, walaaladaada, saaxiibadaada ayaana kugu dhiirigelinaya kuna awoodsiinaya hankaaga iyo himilooyinkaaga inaad gaari kartid. Naftaada waxay aaminaysaa inaad samayn karto wax kasta. 3. Sidee naftayda u dhiirigelin karaa? Waxaa hoos imanaya 4 qaanuun oo aad ku dhiirigelinaya. 1. Inaad qoratid jumlado dhiirigelin ah, aadna dhigatid meel aad mar walba ka arki kartid aadna ku xasuusan kartid. 2. Sidoo kale inaad qoratid hadafyada nolosha aad jeceshahay inaad gaartid ama himilooyinka aad ku aaminaysid aadna maalin walba akhridid intaada guriga ka bixin. 3. Inaad hor istaagtid muraayadda, aamintidna naftaada adoo u sheegaya waxyaalaha aad jeceshahay inay maqasho sida waan awoodaa, waan samayn karaa, waan guuleysan karaa, waan gaari karaa hadafkayga iyo wixii la mid ah. Number 4. Waa inuu jiraa qof role model ku ah kaasoo mar walba ku dayatid wadada uu ku guuleystana aad qaado saad adna u guuleysato iyo sifooyinkiisa wanaagsan. Muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.